بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كيني SMCC دحدو وناكسن عافمادكاغا دحدو waxa ay kamid tahay cunooyinka jirkeena uu ka helo tamarta sidoo kale waxa ay kamid tahay waxyaalaha halis gelin kara caafimaadkaaga shakhsiga maantay waxaan kula wadaagaynaa duxda iyo noocyadeeda duxdu waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah dux fadhida tusaale duxda laga soo saaro xoolaha sida subaga kuruska geela iyo wixii la midka ah iyo dux socoto tusaale duxda laga soo saaro geedaha qudaarta cagaaran iyo xayawaanada ku nool badda shaqo noocee ah ay duxda u qabataa jirkeena duxdu waxa ay cunada u yeeshaa dhadhan sidoo kale duxdu waxa ay ka qayb qaadataa in cunada marka aan cunayno ah ku dareeno qanaaco duxdu waxa ay jirka u kaydisaa tamarta shaqooyinka kale ee duxda noo qabato waxa kamid ah waxa ay noo kaydisaa fitamiinada kala ah fitamiin A fitamiin B fitamiin E iyo fitamiin K sidoo kale duxdu waxa ay jirka ka ilaalisaa qabowga hadaba duxdee u wanaagsan caafimaadkaaga duxdu waxaan u soo qaybinay laba qaybood oo kala ah dux fadhida iyo dux socota duxda fadhida waxa ku badan maadada loo yaqaan kolestaroolkana haddii ay jirkaada ku badato waxa ay halis gelin kartaa nolosha qofka sidoo kale wadnahana waxay u keeni kartaa caafimaad darro duxda fadhida waa mid isbedel badan oo xilliga qabowga aad ay u fadhiisataa xilliga kuleelka ahna waa mid jilicsan tusaale subaga oo kale subaga xilliga kuleelkana waa uu dhalaalaa xilliga qabowgana waa uu dhagaa duxda socoto waa duxda u wanaagsan caafimaadkaaga waa duxda aan isbedelin qabow iyo kuleelba waana dux aan lahayn maadada kolestaroolka caafimaadka wadnahaada halis gelin karto duxdan ilaha laga helo waxa kamid ah saliidda malayga saliidda qumbaha saliid saytuunka iyo saliidda laga sameeyo qudaarta aad mahadsantihiin